Ilayska dunida, hoyga baarista xogaha. Si aad u hesho xogo iyo macluumaad badan oo ku xiiso galiya, hadda booqo oo subscribe leh channelka Ilayska dunida oo ka mid noqo boqolaalka qof ee ku xiran channelkeena, nagulana soo biir caalamkan cusub oo aad ka faa'iidi doontid xogo iyo macluumaad ka yaabiya. السلام عليكم daawadayaashana qiimaha badan waxaan idinka aqbalaynaa codsigiina inaan kaliya dalalka iyo warbixinada cilmiyeed isu koobin. Waxaan soo kordhinaa si wadno xubnaha Bollywoodka mar walba waxaan ku shaqaynaynaa aragtideena. Aragsan Queen waa gabar ka mid ah daawadayaasha ku xiran barteena Ilayska dunida. Waxaan noofinay codsigeedii inaan soo gudbino taariikh nololeedka jilaaga caanka ah ee Amadi John Prakash Rao Chanamula oo caan ku ah magaca John Liver. waa jilaa filim Hindi kana mid ah majaajilayaasha ugu caansan dalka Hindiga. Ninkan Soomaalida waxay u taqaanaa magaca Amadi. Liver waa mid ka mid ah majaajilayaashii ugu horeeyay istaaga Hindiya. Liver waxa uu u tartamay 13 magacyada abaalmarinta Filmfare Award ee waxqabadka ugu wanaagsan doorka comic, waxaana ku guuleystay abaalmarintan 2 jeer. Shaqadiisa Dewana Mastana oo ahaa 1997 iyo Dulhe Raja oo 1998 ahaa. wuxuu bilaabay xirfadiisa 1984 wuxuuna jiray in ka badan 300 oo filim oo Bollywood ah. Liver waxa uu ka dhashay qoys reer Telugu ah oo Masiixi ah. Afkiisa hooyo waa Telugu. Aabihiis waxaa lagu magacaabaa Prakash Rao Chanamula, hooyadiisana waxaa lagu magacaabaa Karumana Chanamula. waxaana sidoo kale si fiican ugu hadlaa Hindi, Marathi, English iyo Tulu. isagu waa kan ugu weyn qoyska oo ka kooban 3 walaalo ah oo gabdho ah, 2 walaalo ah oo wiilal ah oo ku jira walaalkiis ka yar Jamie Moses. Liver waxa wax ku bartay Andhra dugsiga sare ee Ingiriisiga ilaa fasalka 7, laakiin waa uu sii baran kari waayay dhibaato dhaqaale oo qoyskiisa haysatay awadeed. Wuxuu go'aansaday inuu iskoolka isaga baxo, wuxuuna bilaabay shaqooyin aan caadi ahayn sida qalimaanta lagu iibiyo wadooyinka Mumbai, isagoo ku dayanaya xidigaha Bollywood isla markaana ku heesaya heesaha xidigaha Bollywoodka. waxa uu sidoo kale sanadii ugu horeysay ku qaatay Yaktubra oo ah magaalada qadiimi ah oo Hyderabad ah, halkaas oo uu ku bartay qaabka gaarka ah ee jileenka majaajilada. intii lagu guda jiray hawsha shirkadda Hindustan Lever Limited waxa uu ku dayday dhowr sarkaal oo sarsare. Maalintaas wixii ka dambeeyay shaqaaluhu waxay yiraahdeen isagu ma ahan John Rao ee waxa uu ahaa John Lever. kadib ku soo biiritaanka shirkadda filimada waxa uu go'aansaday inuu magacaasi haysto. Amadi ka qoosinta in badan oo shacabka Hindiya waxay keentay inuu ka tago shaqada shirkadaasi Hindustan Lever Limited. Amadi qaabka uu Bollywoodka ku soo galay waxay ahayd kadib safar u raacay koox ay ka mid ahaayeen Amitabh Bachchan, waxaana xigay safarkan show weyn oo lagu qabtay gudaha Mumbai. waxaana arkay jilaaga caanka ah ee geeriyooday Sanidud, waxaana ka yaabay hibada ninkana la kumanaystay, isagoo u sheegay inuu shaqo siin doono. waxaana uu ka soo muuqday filimkii ugu horeeyay ee Dar Krishna 1984 soo baxay. Sandidu filimkan waxa uu ka ahaa director iyo actor, waana halkaas meesha uu ka soo galay Bollywoodka. Amadi filimkii buu caan ku noqday lagu bartay waxa uu ahaa filimkii Jalwa 1987. intaa kadib waxa uu sameeyay aflaan badan sida Kasam, Kishan, Kahaniya, Qatar Ne iyo kuwa kale badan. ka imo 80-meeyadii imo 90-meeyadii waa markii uu noqday nin ka qayb gala film kasta oo la jilayo sabab ku aadan bandhigiisa cajiibka ah ee filimkii Passenger. waxa uu guursaday Sujatha, waxaana leeyahay 2 caruur ah. walaalkiis ka yar Jamie Moses sidoo kale waa majaajilisto iyo farshaxanle jilicsan. Liver waa qof ku dhaqma diinta Kiristaanka. mar la weydiiyay Liver waxa uu ku jawaabay waxay ahayd doonista Eebe. weligayba waxaan ahaa qof diin leh, laakiin hal dhacdo ayaa noloshayda bedeshay. wiilkayga waxaa laga helay burco cunaha ah. waxaan ahaa qof aan ciirsi lahayn ee aan Eebe u kaalmaynaynin. waan joojiyay ka shaqaynta filimada, waxaana ku qaatay waqtigayga oo dhan inaan u duceeyo. 10 maalmood kadib markii loo qaaday baaritaan dhaqaatiirtu way yaabeen maxaa yeelay kansarkii waa u baaba'ay. waxay ii ahayd bilow nolol cusub, taas oo ula jeeday ama uu ku weyneynayay diintiisa. fadlan like saar oo sii share garee adigoo asxaabtada kula wadaagaya baraha bulshada sida Facebook, WhatsApp, Instagram iyo kuwa kale. inaad sii share gareyso waa garab istaagaaga ugu yar ee aad noo fidiso. sidoo kale aragtidaada waxay ka turjumaysaa sida aad ugu xiran tahay Ilayska dunida.